wasiir dowlaha maaliyadda Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaani oo toddobaadadii u dambeeyay magaalada Burco ka waday olole ballaaran oo lagu cidhib tirayo afada qabyaaladda ayaa saaka ku bariistay qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee gobolka Togdheer isagoo kormeerkiisa ugu horeeyay ku tagay dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Burco kormeerkan isaaka ayaa waxa ku wehelinayay badhasaab ku xigeenka gobolka taliyaha qaybta booliska qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco duqeyda iyo aqoonyaha ka gobolkani wasiir dowlaha maaliyadda Soomaaliland Cismaan Saxardiid Cadaani iyo waftigani la socda oo khudbado dhinacyo badan taabanaya u soo jeediyay ardayda ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah عاشو هاي تاي قبيالة الليلية هالشيخ بشير بيت الله يسكولة برعاية الله إلى أرض وكمو دلنا وكمو صابر بارين ومجمو رجلين وقرن موسى بيجرين حاجة كتبي ويسوي عاشو قضى يالبا كيرو قبيالة قبيالة الصومالي لا الله ميل كستاي تاي أرضيده وحوسه وارده كوا كواوي إلا أدرس قريو أو لقى هضله أو أمد لقى قبتنا وأيجا. وانو يدل قبنا وانو يدل ودقنا إذا كوا بتكهيجيا إذا كوا الربتي ما يهين إنا نوديك إذا قارد قرينا أنا كنا قارد قري سامبه إنا ما يركوا قتكتا قوبتيسا إنا تراها وار محاد ما ذو قبته وقصورنا محاد بينوجا هيسا محاد وحبرشة كسو كرنيسي محاد عافمات كسو كرنيسي محاد إصلاح قلك برشة كسو كرنيسي برصاب قصاصوا أيام درو إذا كيسكو فروجن كي دليش لها إذا كان أسطوري أنا كإذا كان أسطوري عبتي الله خير شيخ بشير سكندرية دي لا أسطوري صوبتها markay idinku qabyaalad ku meeraysateen aniguna waxa report ka qaranka ku bixinaya waxa la dagaalamay aan issue ka dhigaya la dagaalanka qabyaaladda ay lahayd masuulina war masuulina sababtoo dhinac kasta haddaan eegno waxaan anigu xusuustaa sanadii ugu dambeeyay ee ciyaaraha koob iyo 10 ka safaraya ila 6 walaalo ku jiray ilma xasan faraso 2 iyo 4 baa ku jiray ila gool laba ku jiray ilma qubana ku jiray 6 baa ha walaalo koob iyo 10 ka galay garoonka kubadda cagta 6 baa walaalaha 2 iyo 5 waxa ilma xasan faras baa la barwayna goob baa ee xamud baa ila 4 waxa cabdu qubana jacd wara wuxuu aanay baa 6 walaalo ku jiray koob iyo 10 ka batalay burcani baa lagu ciyaaray dhinaca kale isagoo ku guda jira howlgalka la dagaalanka qabyaaladda ayaa waxa uu ga sii gudbay dugsiga Sheekh Ibraahim ee magaalada Burco halkaas oo kula hadleen ardayda isla markaana kula dardaarmay inay ka waantoobaan qabyaaladda kana dheeraadaan iyadoo midooyinkii u dambeeyay laga waday magaalada Burco barnaamij lagu baabinayo qabyaaladda ayaa akaademiyadda nabadda iyo horumarka Soomaaliland aanay ku lahayn kaalin muuqata ka qayb qaadashada ololahani waa Cabsaaq Faarax Cabdilaahi iyo Cabdisataar Cabdilaahi Ali TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.